Waxaa jirta hab la yaab leh oo fudud oo lagaga saarayo microplastics-ka biyaha la cabo. Qaybo yaryar oo ka mid ah balastigyada yaryar ayaa si qoto dheer ugu sii qulqulaya jirkeena marka loo eego qiyaas ahaan, si aad ah iyada oo loo marayo cuntada iyo cabitaanka. Saynisyahanadu waxay heleen habab fudud oo waxtar leh oo looga saaro biyaha. Koox ka socota jaamacadda caafimaadka ee Guangzhou iyo jaamacadda Jinan ee Shiinaha ayaa sameeyey tijaabooyin ku saabsan biyaha jilicsan iyo biyaha adag ee adag labadaba. Tusbada biyaha nanog microplastics (NMS) oo ka baxsanaya hababka daaweynta biyaha dhexe ayaa ah walaac sii kordhaya oo caalami ah, sababtoo ah waxay khatar caafimaad u keenaan bini'aadamka iyada oo loo marayo isticmaalka biyaha, ayay cilmi baarayaashu ku qoreen warqadooda. Ketchup caag ah. Microplastics dheeraad ah ayaa lagu daray si loo go'aamiyo waxtarka habka karkarinta iyo shaandhaynta. Waxay ku dareen nanoplastics iyo microplastics ka hor intaanay karkarin dareeraha kadibna shaandhayn wax kasta oo soo daaya. Xaaladaha qaarkood, ilaa 9% NMS ayaa laga saaray habka karkarinta iyo shaandhaynta, inkasta oo waxtarku kala duwan yahay iyadoo lagu salaynayo nooca biyaha. Dabcan faa'iidada ugu weyn ayaa ah in dadka intooda badan ay ku samayn karaan iyaga oo isticmaalaya wixii ay horay ugu haysteen jikada. Istaraatiijiyadan fudud ee biyaha karkarinta waxay ka saarijin kartaa NMS-yada biyaha tuubada guriga, waxayna leedahay awood ay si dhib la'aan ah u yarayso qaadashada bini'aadamka ee NMS iyada oo loo marayo isticmaalka biyaha, ayuu qoray injineerka biomedical Siminyu oo ka socda jaamacadda caafimaadka ee Guangzhou iyo asxaabtiisa. Xoog badan oo NMS ah ayaa laga saaray muunado biyo adag ah, kuwaas oo si dabiici ah u sameeya ururinta limescale ama calcium carbonate marka la kululeeyo. Sawir muujinaya biyo karkaraya si meesha looga saaro NMS. Istaraatiijiyadan fudud ee biyaha karkarinta waxay ka saarijin kartaa NMS-yada biyaha tuubada guriga. Sida caadiga ah lagu dhex arko kisiyada jikada, walaxda nuuradaysan ayaa ku samaysma balaastiga dusheeda marka ay isbeddesho heerkulku calcium carbonate ka baxo xal, si wax ku ool ah u dabinaysa ketchupkii balaastiga ah ee qolof ah. Natiijooyinkayagu waxay muujiyeen in waxtarka roobabka nanoplastic ay kordheen iyada oo ay sii kordhayaan adkaanta biyaha marka ay karkarinayaan, ayay kooxdu qortay. Tusaale ahaan, laga bilaabo 3% sideed eber mgl 1 ilaa 8% iyo 9% hal sideed eber iyo 3 eber mgl 1 ee calcium carbonate, siday u kala horeeyaan. Microplastics on maro buluug ah. Qaybo yaryar oo ka mid ah microplastics-ka ayaa si qoto dheer ugu sii qulqulaya jirkeena. Xataa biyaha jilicsan, halkaas oo kaarboonaytiyaha calcium yar lagu milmo, qiyaastii rubuc ka mid ah NMS-yada ayaa laga soo jaray biyaha. Qayb kasta oo caag ah oo lime ku kordhan ayaa markaa laga saari karaa iyada oo la adeegsanayo shaandhayn fudud sida meshka birta aan kasoo baxa lahayn ee loo isticmaalo caddaynta shaaha, ayay cilmi baarayaashu sheegeen. Daraasadihii hore waxay cabbireen jajabyada bolystirene, polyethylene, polypropylene iyo polyethylene terephthalate ee biyaha tuubada la cabbi karo, kuwaas oo aan maalin kasta u isticmaalno tiro kala duwan. Si loo dhigo istiraatiijiyada imtixaanka ugu dambeeya, cilmi baarayaashu waxay ku dareen xitaa qaybo badan oo nanoplastic ah, kuwaas oo si wax ku ool ah loo dhimay tirada. Cabitaanka biyaha la karkariyey sida muuqata waa istiraatiijiyad mustaqbalka fog ah oo lagu yareynayo soo gaadhista caalamiga ah ee NMS, ayay qoreen cilmi baarayaashu. Cabitaanka biyaha karsan, si kastaba ha ahaatee, inta badan waxaa loo arkaa inay yihiin dhaqan maxalli ah waxayna ku badan yihiin oo keliya dhowr gobol. Kooxda cilmi baaristu waxay rajaynayaan in cabitaanka biyaha la karkariyey ay noqon karaan dhaqan aad u baahsan iyadoo balaastigu ay sii wadaan inay la wareegaan adduunka. Sawir muujinaya isticmaalka NMS waddan kasta. Soo gaadhista bini'aadamka ee NMS-yada iyada oo loo marayo isticmaalka biyaha la cabo. Khariidada adduunka ee adkaanta biyaha la cabo. Cunista maalinlaha ah ee NMS-yada iyada oo loo marayo biyaha la karkariyey iyo kuwa tuubada ee 6-7 gobolin kasta oo aan weli si dhab ah loo hubin sida ay caagani u dhaawacayso jidhkeenna, haddana waxaa iska cad in aanay ahayn kuwa ugu caafimaadka badan cuntooyinka fudud. Caagadaha ayaa mar hore lala xiriiriyey isbeddellada microbiomeka mindhicirka iyo iska caabinta antibiyootiga ee jirka. Kooxda ka dambaysa daraasadan ugu dambaysay waxay rabeen inay cilmi baaris dheeraad ah ku sameeyaan sida biyaha la karkariyey ay uga ilaalin karaan walxaha macmalka ah ee jirkeena, iyo laga yaabee inay ka hortagaan qaar ka mid ah saamaynta naxdinta leh ee microplastics ka soo baxaya. Qashinka caaga ah ee biyaha. Caagagtu waxay sii wadaan inay la wareegaan adduunka. Natiijooyinkayagu waxay ansixiyeen istaraatiijiyad aad u macquul ah si loo yareeyo soo gaadhista NMS ee bini'aadamka waxayna asaaseen asaaska baaritaanno dheeraad ah oo tiro badan oo muunado ah, qorqorayaashu.